intana daawatay meel walbo aad joogto waxaad ku soo dhawaataa janaal kale waaya films oo hadaanoo kale kuu soo gudbiya muuqaaladii ugu dambeeya ee la xiriira arrimaha Bollywoodka iyo Tollywoodkaba. haddaba muuqaalkana maanta waxaan kusoo qaadanaynaa taariikhda kooban ee Suuriya. actor Kareer Taami wuxuu ka mid yahay mid ka mid ah jilayaasha ugu guulaha badan koonfurta, waana mid kaloo leh taageero weyn. haddaba waxaan idinkaga haynaa taariikhdiisa oo aan idinkaga hayno qeybaha ugu muhiimsan ee jilaagan. yaraantiisa marnaba isma lahayn inuu noqon doono qof jila ah, maadaama uu aabihiis ahaa qof filimada qeybka ah. haddana ma tegi jirin meelaha uu aabihiisa filimada ku duubo. magaciisa dhabta ah waa Saravanan Sivakumar. magaca Suuriya waxaa siiye ninka la yiraahdo Mani Ratnam. kuma uusan fiicnayn waxbarashada iyo ciyaaraha. bilowgii wuxuu iska diiday filimada badan oo loo soo bandhigay, waxaana sabab u ahayd inuusan ku qanacsanayn muuqaalkiisa. qeybaha fashionka ayuu muddo 3 sano ah ka shaqeynayay. directorka Vicente ayaa u soo bandhigay filimka uu soo saaraha ka ahaa Mani Ratnam ee la daawaday 1997. saaxiibadiisa way aamin waayeen wayna ku maadeysteen, wuxuuna uu qaatay mid adag inay ahayd. inkastoo ay familkiisa la xumayd, haddana wuu aqbalay inuu sameeyo. wuxuu ku dadaalay 4 sano oo filmo guuldaro ah. kadib wuxuu qirtay inuu u halgamay kalsooni la-aan, jaliil la-aan iyo dheel la-aan. qofka dhiirigeliya waa Mani Ratnam. Raghunavan taliyihiisa ayaa kula taliyay inuu la yimaado aqoonsigiisa gaarka ah. filimka Nanda ayaa wuxuu u soo baxay 2001. waa mid ka mid ah jilayaasha ugu daacadsan. doorkiisa filimka Krishnam wuxuu dhimay miisaankiisa, wuxuuna 8 bil ku jiray jirdhis uu doorkaas u sameeyo. filimkiisa Yufa ayaa wuxuu siiyay in laga aqoonsado Tamil iyo Teluguba. wuxuu Bollywoodka ku soo galay filimka Rafta Charitra uu soo baxay 2010. filimkiisa lacagaha ugu badan soo xareeyay waa Gajani 24 iyo sidoo kale Singam. 2012 wuxuu qabtay barnaamijkiisa Nengalam Vilalam oo ah barnaamijka uu qabto Amitabh Bachchan ee la dhaho Kaun Banega Crorepati, waana asigoo Tamil ah. wuxuuna xaaskiisa Yothika wada kulmeen 1999. waxayna wada socdeen muddo iyagoo ugu dambeyn guri wada galay. wuxuu aaminsanaa sadaqada, wuxuuna furay Agram Foundation oo waxbarashada siiya caruurta faqiirka ah. wuxuuna kaloo leeyahay shirkadda filimada maalgelisa ee la dhaho 2D Entertainment. Suuriya waa jilaa soo saare, barnaamij qabta iyo deeq bixiye. intaa ayaan ku soo xirina muuqaalkana maanta aan kaga hadlayna taariikhda kooban ee xidiga Suuriya. haddaad ka heshana la wadaag asxaabtaada.